ugu horeeyaan xildhibaanada dhalinyarada ah ee walaalaha ee aad doorateen xildhibaan Ismaaciil, xildhibaan Muniira, walaashay xildhibaan Anisa, madaxda halkan joogta oo ay ugu horeeyaan qabanqaabiyaasha madaxda tala wadaag, odayaasha dhaqanka, aqoon-yahanka, culimada, gabdhaha, dhalinyarada, mas-uuliyiinta ila socotay xogayaha koowaad ee safaaradda iyo agaasimaha warbaahinta qaranka ee waqooyiga America, walaalkay Cabdixakiim, guud ahaantiin waa hubaadad aad iyo aad u xushmo badan oo aad iyo aad u sharaf badan oo mudan inaan xuso halkan inay joogaan, laakiin aqoon darrada iyo hilmaanka bini aadamka awgiis waa ka cudur daaranayaa ciddii sida ay mudneed aanan u salaamin. dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaam, waxaan marka hore dhammaantiin idinkaga mahad celinayaa ishraafka iyo karaamada iyo weyneynta iyo qadarinta aad qadariseen ee halkan aad u timaadeen inaad isharaftaan, aniga oo og oo dareensan in ninkan dhalinyarada ah ee aad ka sharafka badantihiin ee ka cisiga badantihiin aanay ahayn waxa aad u timaadeen ee ay tahay qaranka Soomaaliyeed iyo darajada dowladnimada inaad weyneysaan. waxaan si gaar ugu mahad celinayaa tala wadaag, odayaasheeda iyo xubnaheeda dhammaantood, si gaar ah dadkii ilaa iyo intaan Soomaaliya kasoo tegin ila xiriiraya Cabdishakuur, walaashay Kawsar, hawdo, adeerkay gudoomiyaha iyo khiyaarta kaleeto Mahad Qorqor, mas-uuliyiintii kaleeto ee halkan joogta, dhammaantiin waxaan dib u dhiganayaa dad gaar oo raba inaan si gaara u xuso. aad iyo aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sharafta iyo karaamada aad ii muujiseen iyo waqtiga aad soo bixiseen, anoo dareemi kara inay waqti dambe tahay, anigoo dareemi kara in duruufuhu aanay u sahlanayn halkaan in waqti badan dadkaani ay fadhiyaan habnololeedka aad ku nooshiin awgeed, anigoo dareemi kara in maalintiinii fasaxa ee shaqada aad ka nasanayseen muxuu ahaa halkan aad ku bixiseen. intaas ka sokow, inta aanan hadalkayga oo intiisa badan halkan waxa aad iga filaysaan ay ku qoran yihiin aanan gelin, waxaan jeclahay marka hore inaan idinkaga mahad celiyo guud ahaantiin, gaar ahaan dad halkan jooga oo runtii aniga saameyn gaar ah igu leh, qiimo gaar ah igu leh. sababtu waxa waaye aqoonta aan u leeyahay iyo waxaan ogahay ee ay soo qabteen. anoo huba inay joogaan dad kaloo badan oo aniga laga yaabo inaanan aqoonin ama aanan la kulmin oo shaqadaas oo kale soo qabtay. dadkaas aan xusi doonaya waa wakiilo adinka idin matala, waxayna tusaale u yihiin ciwaanka halkan ku qoran ee doorka qurba joogta iyo waxa Soomaaliya aad ka haysaan, oo runtii aniga keliya aanan ahayn qofka og Soomaaliya waxa ka socda, iyo aniga keliya inaanan ahayn qofka soo adeegay ee halkan jooga, gaar ahaan waqtigan dambe dowladnimada ay muxuu ahaa joogto. odayaalan si gaar ah u xusi doono ayaa jira halkan. dadka halkan jooga caawa qofkan ugu horbartay oo xusuus gaar ah ugu leh oo aan rabo inaad u sacbisaan oo halkan ka sheego waa Deeqa Soona. Deeqa Shire waa isla soo kornay almost, shaqadaan isla soo kaano korisay, annagoon is arag ayaan hawada saaxiib ka ahay 20 sanadood ku dhawaad. qof soo shaqaysay oo soo halgantay oo dadka Soomaaliyeed iyo dadka ummadda Soomaaliyeed shaqo weyn xirfadeeda ugu soo qabato ilaa maantana u taagan waaye, iyada oo aan dhaqaale ka samayn oo aan darajo ku haysan. runtii waxa ay u xirato aan ahayn inay qarankeeda u adeegto. aad iyo aad bay u mahadsan tahay. waxaa kaloo halkan jooga Cabdixakiim Cabdi Ismaaciil oo sida uu sheegay 14 sanadood microfonka idinka daba sitay oo warka idinka qaaday, oo dadka Soomaaliyeed qaar badan oo kamid oo halkan jooga aniga aanan aqoonin isaguna baray talentigooda iyo macnahooda. markay igu hor yimaadeen Ismaaciila kamid ah xildhibaanka oo dabcan dadka wejigooda maanta ay igu horeysay, laakiin sida qof aan aqaano kaleeto ay ahaa. isagana waxaan rabaa inaad u sacbisaan shaqada weliba si bilaash ah, isagoo kaamirooyinkiisa iyo microfonkiisa iyo qalabkiisa iibsada. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. waxaan hubaa
sida shaqadu ay qalbigiisa ugu taallaa inay uga dhadhan fiican tahay inuu mushaar ku qaato sababtoo ah waa wax doonistiisa iyo danayntiisa ka yimid iyo rabitaankiisa halkaa waxaa jooga nin la yidhaahdo aadan shimbiralays abwaan aadan shimbiralays abwaan aadan wuxuu dadkaasoo dhan uga duwan yahay halkaanuu ka tegay isagoo shaqaysta oo nolol fiican haysta xamaruu noogu yimid wuxuu yidhi inaan shaqeeyaan rabaa isagoo aan mushaar qaadanaynin oo isagoo baabuurkiisa soo ijaarta oo bajaaj soo raaca oo soo lugeeya ayuu wasaaradda warfaafinta nala jooga wuxuu dad badan marka uga duwanaa xamar sheeko caanaha jirto oo la yidhaahdo saaqaasay gelin waa maqasha soo maa dadku meelaha kulul waa ka dhuntaa khawaarijtu meelaha kulul ay ka mid tahay aadan heesta halkan uu ka qaaday shabaab uga hadlayo waxa xumaanta nimanka ku dhex jirta uu ku tilmaamayo isagoon cidina lacag ku siin ayuu dareenkiisa ku curiyey maankiisa ku laxameeyey lacag ku bixiyey ku tumay qaaday oo gobollada geeyey xeryaha ciidamada ka qaaday maantana waa mid ka mid a suugaanta ugu badan ee ciidankeenu ay furimaha dagaalka ka shitaan runtii culummadu ha iga raalli ahaadaan laakiin nuxurka ay xambaarsan yihiin ereyadaas uu ka hadlayo waa nuxur diineed oo uu ka hadlayo caqiidada islaamka siday u fasaadiyaan oo ay dhibaatada ugu yihiin iyo ummadda ugu yihiin oo ay dhibaato ugu hayaan marka tusaale kaleeto oo mudan in la mahadiyo oo loo mahad celiyo waayo halkan waxaa fadhiya walaalkay maxamed barre oo sida la sheegay dadka dowlad dhiska soomaaliyeed aqoontiisa u hibeeyey oo shaqooyin aad iyo aad u adag dalkan usoo qabtay gaar ahaan lafdhabar u ah haddaad maqasheen guulaha dhaqaale ee dowladdeenu ay gaartay deynta la cafiyey kobcinta dhaqaalaha dadka 24 saac u fadhiyey oo daaha gadaashiisa ka qaabeynayay oo waxaad arkayseen oo madaxda fulinayay soo qaabeynaya ayuu ka mid ahaa aad iyo aad baa u mahadsantahay waxaan halkan ugu dambaysiinayaa nin saaxiibka oo aan jeclaan lahaa inuu istaago oo la yidhaahdo xuseen jaabiri xuseen nin wax bartay waaye 2012 iyadoo xaaladdu iska adag tahay ayuu muqdisho noogu yimid wasaaradda ayuu la taliyo ka noqday runtii waxyaabaha aqoontiisa iyo imaatinkiisu ay suurtogeliyeen ee wasaaradda warfaafinta ay u suurtogeliyeen waa waxyaabaha ugu waaweyn aan ku faano waxyaabaha aan ku xusuusta waxaa ka mid a markii uu noo yimid bahal la yidhaahdo xeerka saxaafadda oo dhib badan oo aada maqasheen oo la dhaqaajin waaye oo mashruuc iska noqday maalinba meel la geeyo ninkii ka shaqeeyey ee isku dubbariday ee nidaamiyey ee ilaa maaragtay madaxdu ay saxiixday isagoo aan waxba ku qaadanaynin oo aan mushaar ku qaadanaynin oo maaragtay volunteer ah ka shaqeeya ayuu ahaa waxaa kale oo uu ka shaqeeyey siyaasado badan oo siyaasadda wacyigelinta qaranka ay ka mid tahay wasaaradda warfaafinta isaga iyo nin la yidhaahdo allah u naxariistay injineer yariiso maayirkii hore magaalada muqdisho waxay ahaayeen raggii qaabeeyey waxa hadda annagu aan sheeganaynay ee maaragtay soo noolayntii wasaaradda iyo dhismihii hay-adaha warbaahinta qaranka dadkii gadaal ka taagnaa oo qaabeynaya oo xirfadiisa dalka ugu deeqay ayuu ahaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan rajeynayaa inuu si wanaagsan idiin taageeray waxaan u malaynayaa tani waa iska kaftan hayga raalli ahaadan haddii ay jiraan dad la tartamaya laakiin waxaan maqashiisanahay inuu musharax yahay in loo hiiliyana waa codsan lahaa maaragtay mushaarkii uu nagu lahaa intaasaan rabaa inaan ugu gudo aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadkaas qiimaha badan ee soomaaliyeed dad kaleeto runtii maaragtay walaalkay abuukar sanay professor abuukar oo isagana halkan jooga ayaa kamid ahaa runtii dadka aan xasuusto ee waqtiga adag soo geliya dad kaloo badan oo halkan jooga sidaas oo kaleetaana waa jiraan aad iyo aad bay macnaheedu waxa waaye dalka Soomaaliya waa loo wada adeegaa qofba meeshuu joogo iyo capacity-giisa iyo awoodiisa ayuu ugu adeegaa sida hadday abuukaato uu ka hadlayo qof qalin ku taageeray iyo qof xirfad ku taageeray iyo qof dhaqaalo ku taageeray yacni wax la wada qabtay waa wax Soomaaliya ka jira intaas markaan ka imaado waa waqti dambe waxaan isku dayi doonaa inaan toos u aado mawduuca labada mawduuc halkan ku qoran intaanan aadin waxaa ii farxada Mareykanka
oo hadda aan u malaynay caawa inay habeenkii 13aad ay tahay inta aan joogo runtii waxaan ku faraxsanahay dadka aan la kulmay ee Soomaaliyeed ee qiimaha badan ee macnaha badan leh oo ka macno badan intii aan filayay waana dhiirigelisay runtii aad iyo aad hadday ahaan lahayd dhinaca siyaasadda oo laga bilaabo Minnesota oo aan kasoo bilaabay walaashay Ilhaan Cumar xildhibaanada sharafkeena iyo magaceena runtii meesha weyn gaarsiisay qiimaha weyn u yeeshay dad badan oo aan Soomaali wax u tartay dad jiilal badanna ay sheegan doonaan waxa ay gabadhaas yar tahay samaysay xildhibaanadii deegaanka xildhibaan Sabakaab xildhibaan Maxamuud Nuur xildhibaan Odan Xasan maayer Naadiya dhammaantood aan mid ula kulmay shaqada ay hayaan iyo saamaynta ay bulshooyinkooda ku dhex leeyihiin magaalada Seattle oo maayer Maxamed Cigaal nin Maxamed Yare la yiraahdo oo gudoomiyaha Takwila hadana magaca qaldin magaalada golaha deegaanka madaxwa gabar yar oo Xamdi la yiraahdo laakiin dekadaha iyo aeroboorada magaaladaas dhowr boqol oo bilyan budget arrin garaysa oo maamusha dadka go'aan kale kamid ah sharaf weyn bay u ahaayeen dadka Soomaaliyeed caawana halkan ay xildhibaan Ismaaciil iyo xildhibaan Muniira iyo xildhibaan Anisa ay joogaan wax weyn oo dadka Soomaaliyeed ay tahay inay ku faanaan waa runtii horumarka aad samayseen kaftan yara jiray saaxiibkay Hussein Jaabir aadan u kaftami jiray marka injineeriyiinta waa taqaanaan Allah u naxariistay Yurub ka yimid Ingiriisku ka yimid marka anigu diasporada kala ma naqaano madmadooba Allah ku yaqaano waa markasta laakiin Yurubta nagu badneedo Hussein waa taqaaniin oo baraawo magaalada Leeyahay ka yimid niman reer mudugaho Ingiriiska ka yimid markasta waxay dhigi jireen Mareykanka anaga ka qatarsano markasta ninka wuxuu dhigi jiray oo hay marka timaada iyada ka jawaabayso marka I hope inay xujadiisii fushay oo ay ka jawaabtay dadkaas marka guuleystay ee Soomaaliyeed ee noloshooda marka ka sameeyay ganacsiga leh dhalinyaro waxaan la kulmay dhaqaatiir ah kuwa bayloodyo ah kuwa injineer ah dad ganacsato ah oo dhaqaale fiican sameeyay oo nolosha meel fiican uga jira runtii waa idinku faanaynaa waan idinku faraxsanahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idin karaameeyo aad iyo aadna waa u mahadsantihiin inta marka laga yimaado walaalayaal ujeedada ugu weyn oo yimid waxay ahayd sidii la sheegay in madxafkaas ka qayb galo 2,000 oo qof oo Soomaaliyeed oo u badan dad aan Soomaaliyeed ama tegin ama ku garaadsan ayaan kala qayb galay munaasabadaas oo dhaqankoodii la barayo oo afkoodii la barayo oo ciyaar dhaqameedkoodii la barayo oo qalabkoodii la barayo hawshaas ay ka shaqeeyaan dad Soomaaliyeed oo oday u yahay nin la yiraahdo Ismaan Cali Gurey asagoo Soomaaliya ka tagay wax bartay wax badan ka qoray Soomaaliya waqtigiisa dhan uu hibeeyay inuu dadka Soomaaliyeed wax u reebo oo wax u taro Seattle sidaas oo kale xalay waqtigan oo kale dad Soomaaliyeed oo dhowr boqol ah ayaan sidaas oo kale wada joognay oo aan sheekaysanayna caawana Ohio jooga oo sidaas oo kale aan sheekaysanayno aan wada hadalnay markii ay dhamaatay muxuu ahaa munaasabadaas waxaan jeclaystay inaan dadka Soomaaliyeed arko intii aan awoodo laba ujeedo mid inaan dhageysto talooyinkooda halkan muxuu ahaa cilmiga faraha badnaa ee aqoonyahanku ay naga siinayeen fikradahaas inaan helno dhageysano iyo inaan maadaama wasaaradda warfaafinta aan ka shaqeeyo intii tabartayda dadka aan u warramo oo maaragtay su'aalaha ay qabi karaan wax badan ma qarsoona laakiin intii aan ogahay aan u sheego ujeedku intaas waa ahaa labada arrimood meeshaan yaalla haddii aan ku hormaro waxqabadka dowladda Soomaaliya ee hadda lagu sharfay madaxweynaha iyo prime ministerka hadda jooga lagu soo sawiray laakiin taariikh dheer iyo meel dheer ka imaanayso aqoon isku dhiib meel dheer ka timid markasta waxay u baahan tahay waqti badan iyo meesha laga bilaabayo marka la cabirayo dowladda Soomaaliya maxaa u qabsoomay waxay ku xiran tahay goorme xagee cabirka iyo mitirka la rabo in la saarayo xaguu ka soo bilaabana laakiin markasta anigu jiilkayga ku soo noqdaa inta tabartayda ah oo ah intii dib u dhiska hadda 25 sano u dambeysay dowladda carta lagu soo dhisay iyo intii ka dambeysay
dabcan taasoo hadda nolosheena aada ugu xiran tahay inkastoo taariikhdii horena sida hadaaya abukaataha iyo professor jibriil iyo ay ka hadlayeen professor abukar iyo ay ka hadlayeen taariikhdu ay isku xiran tahay oo aan la kala miiri karin. haddana intaas dambe aniga qiimeynteyda iyo fahamkeyga qof ahaaneed taariikhda hadda halkaa laga sheegay muddo badan ama ano weliya ka shaqeynay ama ano dowladdu ka shaqeynay. runtii Soomaaliya waxaa ka jira wax na rajo geli kara oo na farxad gelin kara. marka aanan xaaladaha mid iyo laba iyo saddex iyo challengeska iyo caqabadaha u fiirin, laakiin aan jihada u fiiriyo, jihada baabuurku u socdo aan u fiiriyo, aad baan u faraxsanahay. ma welwelsani, cabsi ma qabo, mustaqbal dhismaya oo hore u socda oo ifaya ayaa indhahaygu arkaa. macnaheedu ma aha caqabad ma jirto, culays ma jiro, dhib ma jiro, laakiin habeenba meesha ay ku hoyanayso 4 madaxweyne iyo 12 prime minister ayaan la soo shaqeeyay oo aan xuquuqaal u ahaa xukuumad waxa ay kala wareegtay, madaxweyne wixii uu kala wareegay. marka taas marka aan ku dhiso Soomaaliya sanad ay la mid ahayd sanadkii ka horreeyay 25 sano ma soo maray qiimeyntii, yacni sanad aan ka fiicnayn sanadka ka dambeeyay ma jirin marka runta laga hadlo. marka aan sidaas leeyahay dhowr tiir ayaa asal u ah oo ugu waaweyn. waxa ugu muhiimsan waa midnimada siyaasadeed. dowladnimadu ma isku imaanaysaa mise waa kala durkaysaa? waa factor markasta in la tixgeliyo mudan, indhaha lagu fiirinayo dowladnimadu ma wax dhismayo oo isku imaanayo oo dadka Soomaaliyeed isku soo socdaan mise waa kala tegayaan. 25 sano geedi kasta oo la guuro kii hore waa ka ballaarnaa, more inclusive oo ka ahaa, dadka ka qaybgalaya iyo nidaamka ku jira iyo baaxadda meesha uu gaaro intii hore waa ka ballaarnay. waqti badan ay qaadanaysaa, laakiin haddaad Carto iyo Embagati isbarbar dhigto, Embagati iyo Djibouti haddaad isbarbar dhigto, Djibouti iyo Muqdisho dowladda madaxweyne Shariif haddaad isbarbar dhigto, 2012 dowladda madaxweyne Shariif iyo madaxweyne Xasan ku kala wareegeen iyo dowladda madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Xasan haddaad isbarbar dhigtid, maalin aan dowladnimadu intii hore ka sal ballaaranaynin ma jirto. waa qodob ka mid ah waxay dhiirigeliyo oo farxad geliyo. wax labaad waxa waaye dhismaha dalku ma sii burburaya, yacni institutionskiisa iyo dhaqaalihiisa kaabayaashii ma xoogaysanayaan oo ma dhismayaan mise waa burburaya. iyaduna waa su-aal kale oo aqoon-yahanku ay baari karaan oo ay daraasayn karaan. haddaad fiiriso waxbarashada, haddaad fiiriso caafimaadka, haddaad fiiriso dhaqaalaha, haddaad fiiriso wadooyinka, dhinac kasta oo aad fiiriso magaalooyinka Soomaaliya 90% magaalooyin aan soo kaban waa jiraan, laakiin 90% horey nolosha u socotaa. dhaqaalihii baa xoogaysanaya, waxbarashadii baa ballaaranaysa, caafimaadkii iyo adeegii bulshada gaaraya kordhaya, hay-adihii dowladda ee dadka u adeegi lahaabaa xoogaysanaya, hadday tahay maxkamadihii, hadday tahay booliiskii, hadday tahay wasaaradihii, hadday tahay maamuladii degmooyinka, intaa waa dhismayaan. maalinbana maalinka ka dambeysa waa kasii xoogaysanayaan, waana ka ballaaranayaan. iyaduna waa factor kaleeto oo muujinayo jihada dalkeenu ugu socdo ayay muujinaysaa. yacni xiriirka dibadda iyo dalkeena sida loo arko, indhaha adduunyadu ay ku aragto, iyo sida naloola macaamilo, iyo adduunka xiriirka aan la leenahay, haddaad sidaas oo kaleeto fiiriso, labadii Carta dowladdii yani awooddii diblomaasiyadeed ay lahayd iyo maqaamkii Soomaaliya ee adduunka, dowladda ka dambaysa waa ka xooganeed. ilaa maanta aan soo gaarnay meesha aynan isaga sheekeynaynin oo dalkeenu uu soo gaaray, iyo waxaas awooddaas diblomaasiyadeed aan yeelanay iyo aqoonsigaas caalamiga ah waxa uu noo soo jiiday, iyo
caqabadaha hor yaalay oo naga hor leeyahay marka sawirka marka halkaas laga fiiriyo oo halkaas laga istaago rajo iyo iftiin ayaa horteena ka soo muuqda maxaa marka caqabada ugu weyn tahay oo mar badan laga yaabo dadka waxa ku soo dhacay su'aasha ugu horeysa ku soo dhacaysa waxay tahay waxa isku milan oo isku dhex daran xaqiiqada dhulka taala iyo waxa socda oo haddaad Baydhabo tagto ama Garowe tagto ama Boorama tagto ama Kismaayo tagto runta taala iyo waxa idaacadda ka socda ama Facebook ku qoran farqi aad iyo aad u weyn baa u dhaxeeya si marka loo fiiriyo adduunyada oo dhan warka xun iyo warka fiican ma tartabaan dadka aqoonyahanka oo yaqaan wariyaasha waxa la bad news is a good news haddii war xun jiro ninka wariyaha maalintaas asaga maalintiisa maalintaas waa laakiin warka fiican Baydhabo sheeka naxdin lahaa ka dhacday marka Facebook la soo geliyay iyo marka la yiraahdo Baydhabo wada 3 kiiloomitir la furay tensionka dareenka bini'aadamku isku soo ma qabanayo warbalaayada dhacday fiiriyo qofku sidee markaas uu tagay oday meel fadhiyo ay tamay reerkeena la dhacay ka hadlay laakiin wada markuu arko waxa iska caadi waayo wadadan ama inay jiri jirteen si jirinba ma yaqaan marka waxa isku milan saamaynta ay dadkeena ku leeyihiin warka idaacadda ka maqlaan iyo sheekada maaragtay la soo tabiyo haldanka siyaasiga oo caadiga ah nolosha ka mid ah ayaa waxa uu daboolayaa horumarkii hadda waxaa laga yaabaa tusaalaha ugu dambeeya markaan idin soo qaato dowladda hadda maanta joogta waxaad maqasheen waxyaabo waaweyn oo qaranka Soomaaliya taariikh weyn u ah oo dalkeenu u gaaray oo ay ka mid tahay Security Council-ka inaan xubin aan joogto ahayn aan ka helayno insha Allah ta'ala aan helnay oo ku fariisanayno January soo wax aad iyo aad u weyn ma Soomaaliya 5 bilyan oo deyn ah oo ummadeena ku taagneedana la ka cafiyo oo adduunyada naga cafisay oo dalal aad u badan oo naga horumarsan aan ku guuleysan in laga cafiyo soo wax kale oo weyn ma qabateyntii hubka ee saareed ciidankeena ayaa maanta adduunyadu ku qanacday inay naga qaado oo nala ka qaado oo ciidankeenu uu access u leeyahay inaan si dhammaystiran u dhisano soo wax aad iyo aad u weyn ma dhaqaalaheena waxaa ka shaqeeya Maxamed wadamada Afrika wadamada ugu korista badan aan ka midnahay GDP-geena 4.2 soo wax weyn ma waxaasoo dhan marka la barbar dhigo shirkii maamul goboleedyada Soomaaliya nin ka mid ah madaxda gobolada ka baxay dadka sidee saameyn isugu leeyihiin labadooda marka isku barbar dhigtay dadka tay u xiiso badan ay rabaan inay maqlaan ay arkaan ay dhageystaan maanta lagu weydiiyaan يعني example tusaalan ka wada tusaaluhu marka waxa waaye dawlad dhista lagu macabiri karo lagu manamitirin karo hardanka siyaasiga iyo gabadhacleynta siyaasadda oo ah dimuqraadiyadii iyo wixii aan rabnay iyo wixii aan u dagaalameynay in siyaasadda la isku haysto lagu hardamo oo aysan hal meel ka go'in waa wixii aan u dagaalameynay haddii marka dawladdu waa dhismaysa iyo ma dhismayso hebel iyo hebel is haysta haddii lagu jaangooyo dhibaato waa meesha marka ay naga laadahay meeshaas waa waxa oo dadka ka daboolayo horumarka laakiin runtii dalka Soomaaliya ereyga ugu fiican waxaan u maleynayaa wuxuu ahaa abukaatu ahaa Soomaaliya waa soo noqotay dawlad cagaheeda ku taagan oo dalalka adduunka ka mid ah waa waa abaal iyo mahad ay leeyihiin dhammaan dadkii Soomaaliyeed ee madaxda ahaa ee soo shaqeeyay 20 iyo dhowrkaas sanadood oo qof kasta intuu meel ka raray meel uu geeyay qofkani indhihiisu waxay qabtaan maalintaas mushkiladda ugu weyn hortaada intaas ay la egtahay inta aad fikiri karto waxaa laga yaabaa wixii priority u ahaa madaxweyne Cabdiqaasim iyo wixii priority u ahaa madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waa kala duwanaayeen sababtuna waqtigaa kala duwana wax hor yaalla kala duwana qofka marka madaxweynaha ama madaxda maalintaas talinaysa
maalin badalka waxbaa u leh ahmiyadda koowaad. maanta waad maqasheen madaxweyne xasan sheekh markuu yimid wasaare xamse ahmiyaadka ay la yimaadeen waxay ku fadhisay caqabadii dowladnimada markaa hortaagay oo ay ugu waaweynaayeen 3 waxyaabood. amniga oo nimankaas khawaarijta ah ay halis ku ahaayeen inay dowladnimada rogaan oo afgambiyaan intay dadka Soomaaliyeed ku milmeen oo dhibaato badan ay geysteen. dagaalkii lala galay wuxuu suurtageliyay maanta baabuurka Muqdisho ka bax inuu magaalada Gaalkacyo si nabad ah ku tago. waa inta ugu yaro ay ku fahmi karto wuxuu suurtageliyay dadka Soomaaliyeed oo aan uga dad ganacsataa oo halkaan jooga inay ka mid yihiin oo xoolahooda ay khawaarijtu canshuuri jireen ayaga oo Jayna yaala ama America aan ka tegin maana fayska loo diri jiray in maanta lacagtaas ay u baaqantay dadka Soomaaliyeed oo aan babooyin lagu dilo lagu soo iibinaynin. waxay dhashay maanta culimada Soomaaliyeed qaar badan oo kamid halkan ay joogaan meelo kala duwan isaga yimid intay fariistaan dadka Soomaaliyeed ku dhiiradaan u sheegaan ay dhahaan nimankaas waa khawaarij hal iska dhiciyo ilmaha laga ceshado halala diriro. halkaasuna dhaxalsiiyo dagaalkaas maanta inaan u heesayno oo aan u sacbirayno oo aan ku baraamburayno shabaab waxay ogaataan wax iska dhacay maaha. 4 sano ka hor ma u malaynay meeqa qabiil oo Soomaaliyeed awoodeen inay isku yimaadaan dhahan shabaab la dirirayna. meeqa qof awoodeen inay ku baraamburaan shabaab ay ku heesaan ay ka hadlaan ay ku gabiyaan. laakiin maanta wax laga baqan maaha qof kasta waa ka hadashaa bal waa lagu tartamaa qabiiladu waa ku tartamaa. wax iska dhacay oo iska yimid oo iska samaysmay ma aha. magaalada Muqdisho guri kasta oo kamid ah maanta kaamira ku xiran iyo dukaan kasta dadka Soomaaliyeed ay qabteen. laakiin sanado ka hor maxaan ka hadlaynay sanado ka hor dadku telefoon intuu qofku intuu telefoon kuu soo diro inuu kula hadlo wuxuu ka shakinayaa in dhexda shabaab ku jiro. وثلاثة ولا مغلا عن سكوت معنا كلها مركو في من ميلو في فيرنا waxay ahayd wax la abuuray Soomaa dadka marka aqoonyahanka ah malaha dadka u cabiri kara oo aqoontaas leh masaafada iyo distance-ga ay tahay qabiil dhan inuu isku yimaado anagoo reereebina maanta qabiilada Soomaali ugu sharafta badan oo lagu faano macawisleyda kamida Soomaa. facts waaye xaqiiqo waaye magaalada Muqdisho inuu guri kasta kaamiro lagu xiro oo qof kasta kaamirada xirto oo dadka hadda ma aha dawlad hadda ma force garayso ayaga wata because waa arkay noloshooda waxay ka bedeshay arkay tuugadii dhibaatadii anshaxumadii ilmahoodii dadka hadda ku ilmihii ku ilaashadaan gurigooda waxa ka socdo. marka amniga halkaas aan ka maraynaa waxaa dhinac socota ciidankeena oo lambarkiisa la laba jibaari miisaaniyadiisa la laba jibaari qalabkuuna hore u haysan oo ay ka mid tahay diyaaradihii iyo hubkii cusubaa helay ayagu isku filan hadday tahay logistic iyo hadday tahay dagaal iyo hadday tahay dhaqaale halkaasay amniga ka marayna. dabcan weli wax badan baa naga hadlaysan waa fognahay ma dhowin shaqo badan baa noo taala laakiin horumaraan ka samayn. waxa labaad oo dowladdu ay xoogga saarta waxay ahayd siyaasadda in la xasiliyo ama la rasmiyeeyo geediga 25 sano ah oo aan ka hadlaynay maalinba odayaal iyo ikhyaar Soomaaliyeed oo maalinkaas xaajada lagu gudbeeyo intay isku yimaadaan bay waxay dhaayeen maantay seen u guurnaa qaabkeen dowladda u dhisana maalin 120 oday isku keen maalin 720 oo loo dhis isku keen haddana 2 baarlamaan isku dar intaasoo dhani geedi bay ahaayeen dowladnimada adduunku yaqaano wax ka baxsan ay ahayd nidaamka dowladeed adduunku sida yaqaano dimuqraadiga wax ka baxsan ay ahayd.